la daba joogay al-Khalifa ee lahaa madaxweyne ku-xigeenka Niyab Soomaaliga yaqaanaba maaha ma dhageysateen khudbadihiisii intii uu ceeri gaaba tegey iyo intuu celaf weyn joogay arrintaa la leeyahay boqorkayn baa la aasaya ee lascanood laga leeyahay ee buuhoodle laga leeyahay ee burco laga leeyahay ee yeyle laga leeyahay arrin xukuumadda ka soo baxday ma totally dhowr jeer ba hadalka laydinku yara dhuftay Axmed Faarax tignika ma keenin war Axmed Faarax isaga tignika ahaa 8 markay dhacdo 10 ama 11 waxaa taagnaa 800 oo nin oo ismadaya nimankii la dib boqor Ismaan inaa Maxamuud ilaahay baan kugu dhaarshay bahasha in yar maanta kala hadhin lafta xag jimco wanaagsan Ramadaan Kariim ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay ilaahay cibaadadii intii soo soontay salaadii iyo soontii iyo cimrihii dhammaantood baa Allah idinka aqbalo waafayeenkii saadada ama durriyada ama saxaaqiyada saad u taqaaniinba ee guud waxaan ka hadlayaa maanta qodobo kooban oo ay ka mid tahay nabadeynta ceel afweyn laga wado ee ay xukuumaddu gogasha dhigtay labada beelood ee walaalaha ay u dhigtay Idris iyo reerka la Bahayga oo midna yahay Biciide midna uu yahay reerka la yiraahdo Saad Yunis aad iyo aad baan isu dhaweynayaa gogasha nabadeed ee beelaha walaalaha ah ee ka dhacday ceel afweyn ee boqorkii uu saldhig u yahay boqor Cismaan Buurmadow oo aan halkan fariin u marinayo boqor Cismaan inaa Maxamuud ilaahay baan kugu dhaarshay bahasha in yar maanta kala hadhin lafta xag dhamee gacanta isu saar wax kasto ku kala maqan adiga iyo madax dhaqameedka kula jooga dhameeya waxaan mahad celinayaa xukuumadda qaybta idinla joogta oo la barwan ka yahay madaxweyne ku-xigeenku alla ilaahay hadalka uu yiri madaxweyne ku-xigeenku war wada tashada oo ha kala tashanina war wada jooga oo ha kala tegina war ha isxamanina ee isku xariira wadhay xiraday waa hadal qiimo gala jasaakum allah khayr madaxweyne ku-xigeen ilaahay waxaan kaaga baryayaa miisaanka xasanaadka in ilaahay kugu daro nimankii la daba joogay al-Khalifa ee lahaa madaxweyne ku-xigeenka Niyab Soomaaliga yaqaanaba maaha ma dhageysateen khudbadihiisii intii uu ceeri gaaba tegey iyo intuu celaf weyn joogay siduu ummadii u kala hagay ee uu kala fariijiyey ee isugu celiyey ee isugu nadaamiyey alla ilaahay intuu aftahamay yahay buu yahay nin waayo araga oo wax garada oo qiimo leh jasaakum allah khayr ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo waxaan kale mahad celinayaa wasiirkii gaashaandhigga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Yuusuf oo isaguna arinta waxa saldhig waxa jooga isagana tariyihii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nimcaan oo ah nin aad iyo aad u qaaliya ilaahay idinku guuleeyay arinta ilaahay waxaan idinka baryayaa waa maalin jimce waa Ramadaan waa 10kii dambaanu galay waa maalintii 22aad ilaahay waxaan idinka baryaa iyo sulaadiinta madax dhaqameedka labada beeloodba intii meesha joogta ee u guntatay ee xukuumad leh ee madax dhaqameed leh ee sulaadiin leh ee tijaar leh ee culimo leh ee arinta walaalnimo iyo ehelnimo iyo tasliix ku gashay ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay inuu dambigooda dhaafo miisaanka xasanaadkana Allah ugu daro ninkii xiribka galowna way noo qiyaamaha inoota arrintaas si wacan loo dhameeyo waxaan kaloo halkan iyagana kala hadlayaa oo u sheegaya oo aan ka hadlayaa qodobka labaad oo ah qodobkayga labaad oo ah boqorkayn baa hadalkeedu soo laablaabtay boqorkayn waxa la yiri dadka lahaa waxa lagu yiri ama se ay dhowr jeer la soo weydiiyay ama madax dhaqameedku odayaashu soo weydiiyay boqorkayn iyo xukuumadda arrinta markii aan xogeystay muddo dheer baan sugayayo arrinta la leeyahay boqorkayn baa la aasaya ee lascanood laga leeyahay ee buuhoodle laga leeyahay ee burco laga leeyahay ee yeyle laga leeyahay arrin xukuumadda ka soo baxday ma totally sabab loo aasaana meesha ma wataalo wixii loo geystay
ayaa la doonayaa in laga bi'iyo oo ciddii u geysatay ay ka bi'iso laakiin waa la aasaya xukuumadeennana kama soo bixin madax dhaqameedkeennana ma odhan arrintaa waxaa ka shaqeeyey dad isku diraya oo ku dhex jira xukuumadda iyo dadka shacabkaaba ka shaqeeyey aniga gunta soo taabanay mana dhaci doonto mana dhacayso arrintaas waxaan leeyahay reerkii la odhan jiray habar jeclo arrintaasi aad bay idin xushay ha idinka baxdo arrintaasi ma jirto sal iyo raatoona male meel allaale meelay ka timi markaan baadhay markaan raadiyey markaan ka fiirsaday markaan cid walba weydiiyey markaan in badan raadinayey arrintaasi maaha arrin u taalla maanta ka soo baxday xukuumadda maaha madax dhaqameedkeennana kama soo bixin qolada ictisaami aad maagayseenna kama soo bixin cid allaale cid ay ka soo baxday markaan raadiyey siyaasiyiintii hore qoladii siyaasiyiintii hore ayay ka soo baxday raadka hunuudaasi ay ka soo baxday arrin saliya raad toonale maaha waxaa la iska horkeenayaa beelweynta habar jeclo iyo xukuumadda ayaa la iska horkeenaya arrintaasi ma jirto yaani idin gelin madaxweynahana kama soo bixin aqalka baarlamaanka kama soo bixin aqalka guurtida kama soo bixin aqalka wasiirada kama soo bixin arrintaasi arrin jirta maaha waa isku dhufasho iyo isku dhac taana sidaa ku laqa waxaan halkan uga mahad celinayaa iyagana beelaha la yidhaahdo ilmo faarax gaashaanbuurta ilmo faarax cabdillah la yidhaahdo waa faayo faarax iyo beelo faarax iyo axmed faarax ilmo bacanbarena waa la yidhahda qolada kale daahir faarax iyo ilmaha lamagad cabdillahna waxaa la isku yidhahdaa bageriyo waa labadaa bahoodoo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa nimanka ilmo baardayo shalayto gaadhay meesha la yidhahda qurlugud gaashaanbuurta anigu waxaan u aqaanaa gaashaanbuurta ilmo faarax baan u aqaanaa ilmo faarax cabdillah u aqaanaa waa beelo faarax faayo faarax iyo axmed faarax gaashaanbuurtaasaan u aqaanaa ilmo baardina waa la yidhaahdaa qolada kale daahir faarax iyo ilma allamagad cabdillahna waxa la isku yahaa bageriyo ee gaadhsiiyey qurlugud ciidanka oo aan saaxiibkay bidhi aad iyo aad baan mubaarak halgamaa mujaahid aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa taariikhdaa ku qori doonta adigii raggii kula socdayba waa dhammaantood baan u mahad celinaya walaalahay gaashaanbuurta ilmo faarax cabdille ee gaadhay qurlugud ciidamada iyo gaadhsiiyey hubka iyo saanada anigoo u mahad celinaya waxaan leeyahay saaxiibkay mubaarak jasaakumullah khayr aad baan adiga si gaara iyo si gura intaba si gaaran kugu mahad celinaya walaalahay waxaan leeyahay waad mahadsantihiin awalba nagamaydnaa maqnayno malaa dhowr jeer ba hadalka laydinku yaro dhuftay axmed faarax tignika ma keenine war axmed faarax isagaa tignika ahaa 8 markay dhacdo 10 ama 11 waxaa taagnaa 800 oo nin oo ismadaya ah oo nin waliba qorigiisa shashada haysto la sanayo iyagaaba tignika ahaa iminkana hadday tignikadii keeneen oo gantaali ridada dheeraa keeneen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kusoo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa walaalahay marka horeba jiida kamaydnaa maqnayn raggii difaaca ugu adag raggii aasaasay baad ahaydeen raggii difaaca ugu adag ku jiray baad ahaydeen waad mahadsantihiin jasaakumullah khayr